maalmihii la soo dhaafay qaaradda Yurub oo idil waxay ku jirtay feejignaan iyo diyaargarow aysan mantiqadu horey u arag tan iyo dagaalkii qaboobaa kadib. kumanaan askar Ruush ah ayuu Ruushku ku soo daadgureynayay xuduudda uu la wadaago dalka Ukraine. sirdoonka reer galbeedku waxay ka digayeen duulaan qaawan oo uu Ruushku ku doonayo inuu kula wareego Ukraine. waanwaantii lagu doonayay in la wada hadalsiiyo Ruushka iyo reer galbeedkuna waxay ku soo idlaatay fashil iyo guuldarro, waxaana haatan dhegta loo taagayaa kan ridi doona xabadda ugu horeysa dagaalka. في مواجهة لأي تحرك عسكري روسي محتمل. waxaynu dhammaanteen wada ogsoonnahay in Ruushku uu doonayo inuu dib ula soo noqdo gacan ku haynta dalka Ukraine. haddaba su'aasha jawaabta u baahan ayaa ah, maxay tahay ahmiyadda ay leedahay Ukraine? maxayse tahay sababta ay reer galbeedka iyo Ruushku ugu xifaaltamayaan gacan ku dhigidda dalkan? sababta waxaynu ku ogaan doonaa muuqaalkeenna maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Wabari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. kadib markii uu burburay midowgii Sofiyeetku, waxaa curtay dalal la yiraahdo bariga Yurub oo ah dalalka dhaca xuduudda u dhaxaysa labada quwadood ee ugu weyn mantiqadda, Ruushka iyo gaashaanbuurta NATO. Ruushku wuxuu dadaalkiisii oo dhan isugu geeyey inuu gacanta ku dhigo dalalkan dhaca bariga Yurub ama uu saameyn ku yeesho siyaasadda dalalkaasi si ay ugu noqoto awood uu ku handado dalalka ay cadaawaddu kala dhaxayso ee Yurub. dalalkan dhaca bariga Yurub, dalka ugu muhiimsan ee uu in badan ku dadaalay inuu la wareego waa dalka Ukraine. Ukraine waxay ka tirsanaan jirtay boqortooyadii ama imbiradoriyadii Ruushka. markii ay burburtay boqortooyadaasi oo uu curtay midowgii loo yaqaanay Sofiyeetka, waxay ka mid ahayd dalalkii ugu muhiimsanaa midowgaasi. markii uu burburayna waxay noqotay dal ka madax bannaan Ruushka. dalkan oo ku yaala xuduudda uu Ruushku la leeyahay Yurub ayaan ilaa hadda si rasmi ah uga mid ahayn midowga Yurub iyo sidoo kale gaashaanbuurta NATO, inkasta oo ay ku dadaalayso ka mid noqoshadooda. Ruushka iyo Ukraine ayaa marka laga yimaado siyaasad ahaan ka midaysan dhaqanka iyo luqadda, waxaana badanaa looga hadlaa dalka Ukraine luqadda Raashiyaanka, taasoo ka dhigtay Ruushka inuu u arko dadka Ukraine dad Ruush ah oo aan ka go'i karin Ruushka wax walboo dhaca. wuxuuna har iyo habeen dadaal ugu jiraa inuu dib ugu soo celiyo gacantiisa. sannadkii 2004 dalka Ukraine waxaa ka dilaacay kacdoon loogu magacdaray kacdoonkii oranjiga ahaa, waxayna ku dalbadeen mudaharaadayaashu inuu joojiyo Ruushku faragelinta qaawan ee uu ku hayo dalkooda. laakiin waxba kama suurtoobin rabitaankoodii, taasoo ka dhigtay in 10 sano kadib kacdoonkaasi, gaar ahaanna sannadkii 2013 in mar labaad ay Ukrainiyiintu ku soo noqdaan waddooyinka oo ay mudaharaadaan ka hor inta uusan isku beddelin mudaharaadkan kacdoon hubaysan. bilowga sannadkii 2014 madaxweynihii xilligaasi xilka hayay ee lagu mudaharaadayay wuxuu ahaa ninkii la oran jiray Viktor Yanukovych. ninkan oo la wareegay xilka sannadkii 2010 ayaa u janjeeray dhinaca Ruushka, saaxiib dhowna la ahaa madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Viktor ayaa bilaabay sannadkii 2012 wadahadal u dhexeeyay Ukraine iyo Yurub, wuxuuna wadahadalkani saldhig u ahaa heshiis ay doonayeen inay wada galaan labada dhinac oo quseeyey inay iska kaashadaan Yurub iyo Ukraine dhaqaalaha, siyaasadda, amniga, in labada shacab ee Ukraine iyo dalalka kale ee Yurub ay si xor ah isugu kala gooshaan, iyo sidoo kale in shaqaalaha labada dhinac ay helaan xuquuq siman. heshiiskan oo ay u hanqaltaagayeen shacabka Ukraine ayuu diiday madaxweynihii dalkaasi inuu qalinka ku duugo oo uu saxiixo, wuxuuna ka doorbiday garab istaag siyaasadeed iyo dhaqaale oo uu u ballanqaaday Ruushku. dabcan tallaabadan uu sameeyey madaxweynaha Ukraine ayaa sabab u noqotay in 2013 ay waddooyinka Ukraine oo idil buux dhaafiyaan mudaharaadayaal dalbanaya in laga hoos baxo gumaysiga Ruushka, go'aankoodana ay u madax bannaanaadaan. mudaharaadkan ayaa isku beddelay gacan ka hadal iyo in la weeraro ciidamadii dowladda, waxaana ka dhashay dhimashada tobaneeyo shacab iyo ciidan ah ilaa markii dambe uu madaxweynihii u cararay dalka Ruushka. markii uu tegey madaxweynihii, baarlamaankii dalka Ukraine
ayaa u codeeyey in xilka laga qaado, laakiin xilka qaadistaasi ma damin dabkii holcayay, balse waxay ku sii shiday baansiin. bariga dalka Ukraine, gaar ahaanna gobolka la yidhaahdo Donbass, ayaa waxaa ka dhacay mudaharaadyo ay soo abaabuleen maleeshiyaad ka soo horjeeda dowladda. mudaharaadayaashan ayaa ku handaday inay xilka ka tuuri doonaan madaxweynaha iyo xukuumadda dalkaasi ee u janjeerta dhanka reer galbeedka. handadaadan ayaa run isku beddeshay kadib markii uu dagaal ka dhex curtay maleeshiyaadkan iyo ciidankii dalka Ukraine. Ruushka ayaa garab istaag dhaqaale iyo sahnadeed u fidiyey maleeshiyaadkii ka dagaalamayay gobolkan, wuxuuna noqday dagaalkii mid faraha la isaga gubtay oo aan waxba la isku reeban, ka hor inta uusan gobolka Donbass noqon mid u qaybsama maleeshiyaadka oo haysta dhinac iyo ciidankii dalkaasi Ukraine oo gacanta ku haya dhinaca kale. dabcan dagaalkan waxaa ku nafwaayey boqolaal, waxaana lagu barakiciyey kumanaan shacab ah oo aan waxba mutaysan. dagaalkan ayaa socday ilaa laga saxiixay heshiiskii lagu magacdaray Minsk ee dhacay sanadkii 2015. dabcan waa la joojiyey xabaddii, laakiin colaaddii iyo xurguftii dhex taalay labada dhinac waa mid ilaa maanta taagan oo aan weli xal loo helin. dhinac walbana wuxuu waardiye kaga jiraa dhufayskiisa. intaasi kuma ekaan Ruushku, balse isagoo ka faa'iidaysanaya qalalaasyaha siyaasadeed ee uu ka abuuray Ukraine, ayuu ku daadguriyey kumanaan kun oo ciidankiisa ah jasiirad lamoodka Crimea. kadibna wuxuu bartamaha sanadkii 2014 ka qabtay jasiiraddaasi afti dadweyne oo ay dadweynuhu ku dooranayaan cidda maamulaysa, wuxuuna Ruushku sheegay in si aqlabiyad leh ay dadku ku aqbaleen inuu isagu maamulo. waxayna tallaabadani ka dhigtay howlgalkii ugu ballaarnaa ee dhul ka tirsan Yurub uu Ruushku kula wareego tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka kadib. bishii labaad sanadkii 2019, Ukraine ayaa dib u habeyn ku samaysay dastuurkoodii, waxayna qalinka ku duugeen inay weli ku dheggan yihiin mabda'oodii ahaa ku biiridda midowda Yurub. laakiin Ruushka oo ka cabsi qaba in dhul uu xuduud la wadaago la geeyo ciidamada gaashaanbuurta NATO iyo gantaalada difaac ee Yurub, ayaa weli cadaadis ku saaraya Ukraine inay ka noqdaan rabitaankoodan. bartamaha sanadkii 2021, Ruushka ayaa tiro badan oo ka tirsan ciidankiisa ku soo daadguriyey xuduudda uu la leeyahay dalka Ukraine, wuxuuna sidoo kale ciidamo hor leh geeyey jasiiradda Crimea. waxaana lagu qiyaasaa ciidamada uu geeyey jasiiraddan oo keliya 175,000 oo askari oo ku hubaysan dhammaan noocyada uu ka kooban yahay hubabka culculus. dhammaan warbixinnada sirdoon ee reer galbeedka ayaa farta ku taagaya in Ruushku uu sanadkan gudihiisa rabo inuu qabsado Ukraine, waxayna sheegayaan in markan uu ka weynaan doono dagaalku kii uu ku qabsaday Ruushku jasiirad lamoodka Crimea. waxaana loo sababaynayaa dhowr qodob. madaxadayga uu Ruushku ugu madaxadaygayo inuu awood ciidan kula wareego Ukraine. qodobka koowaad ayaa ah Ruushka oo dareemaya inaan cidna waxba ka qaadi karayn dhammaan handadaadaha iyo hanjabaadaha ay reer galbeedku u soo jeedinayaanna aysan waxba ka mira dhalaynin, isaga oo ka tusaale qaadanaya handadaadihii loo soo jeediyey markii uu qabsaday sanadkii 2014. jasiirad lamoodka Crimea ayaa mar kale rabaa inuu dib u soo celiyo tijaabadii 2014. qodobka labaad ayaa ah in Ruushku uu u arko inuusan diblomaasiyad iyo siyaasad toona kula wareegi karin Ukraine, maxaa yeelay dhammaan madaxdii iyo siyaasiyiintii uu garab istaagga u muujiyey badankood markii ay gaareen xukunka ayay u leexdeen dhinaca Yurub, lana galeen heshiisyo uu Ruushku u arkayey inay dhaawac ku tahay siyaasaddiisa, taasoo ka dhigtay laga maarmaan inuu awood ku raadiyo xalka. qodobka saddexaad ayaa ah in Ruushku uu u arko reer galbeedka, gaar ahaanna Maraykanka, inuu yahay mid si sahlan uga dhaqaaqa xulafadiisa haddii uu dareemo khatar. waxaana tusaale kugu filan sidii uu Maraykanku dhabarka ugu jeediyey Afghanistan, maalin cadna uu uga cararay xulafadiisii, isagoo daabushay dhammaan ciidamadiisii iyo howlwadeennadiisii, taasoo dhiiranaan sii gelinaysa Ruushka. isku soo duuduubo, waxaa laga dhursugayaa meesha ay ku dambayn doonto colaadan iyo xurguftan ka taagan Ukraine, waxaana la wada ogsoon yahay in haddii uu dagaal ka bilowdo Ukraine uusan ku koobnaan doonin Ukraine oo keliya, balse uu noqon doono mid ay fooda istaraan dalalka reer galbeedka oo idil.